nabadda wadayaal bilowal baa joogtaan mar kale kulan xiiso badan soo dhawaada mawduuca maanta ama barnaamijkan maanta rabnaan ka hadalno waa barnaamij channelka ku cusub yahay inaan soo gudbino sheekooyinka dilalka ka dhaca caalamka waxaana ugu badnaadaan dalka Mareykanka oo ah dal khataraha ama dilalka ka dhaca rekool gareeya ama wax ka qora ama kaydiya xogta sida waxa uu dhacay kadibna la wadaaga dadweynahiisa ama guud ahaan adduunka dhan marka waxaan maanta ka hadlaynaa dhacdo la yaab leh oo laba siba la yaab leh marka hore dhacdadani dalka Mareykanka ka dhacday waxayna dhaxmartay gabar iyo hooyadeed gabar ayaa dishay hooyadeed marka sababta ay ku kaliftay in ay dishana waxa iska lahayd hooyadu sida gabadhu ay ku andacoonayso waxay u geysatay dambi aad u weyn oo nolosheedii yaraanteedii ilaa ay weynaanteedii iyo mustaqbalkeediiba galaftay sida ay ku andacoonayso gabadhu marka sheekadan aan guda galeynaa iyo qaabka ay dhacdadan ay u tahay mid aad iyo aad loola yaabay markay ka dhacday gudaha dalka Mareykanka guud ahaan markii lala wadaagay caalamkana waxay noqotay sheeko aad iyo aad cajiib u ah oo dadku ay doonayeen meesha ay ku dambeyn doonto ama xukunka ay ku dambeyn doonto gabadhan hadaba aan guda galno JB Cyrus Blanchard waxay la kortay hooyadeed Didi Blanchard waxay marar badan hooyada sheegi jirtay in gabadheeda ay xanuunsan tahay taas oo aan waxba ka jirin balse ujeedkeedu ahaa helida dhaqaale ay ka hesho dawladda ama hay'adaha gargaarka hooyadeed waxay ka been sheegtay caafimaadka gabadheeda iyo astaamaha jireed oo ay isbedelo ku sameysay arintan ayay muddo dheer waday balse waxay banaanka tibid kadib markii gabadheedu ay qorshaysay dilka hooyadeed iyadoo u adeegsatay nin ay habka online ka iska barteen JB Cyrus waxay dhalatay 1991 waxay ahayd mid aad u yar markii ugu horeysay ee hooyadeed Didi ay sheegtay in gabadheeda ay qabto hurdo xumo iyo xanuuno kale markii ay JB ay jirtay 8 sano Didi waxay ku tilmaamtay inay la ildaran tahay cudurka leukemia iyo murqo xanuun oo ay sheegtay inay u baahan tahay kursiga curyaaminta iyo tubada quudinta xanuunada ay gabadheeda ku sheegtay waxa kamid ah qalalka neefqabatinka iyo maqal yarida iyo aragtida daciifta ama aragga oo daciifa sheegashada hooyada gabadheeda waxa loo qoray daawooyin waxa lagu rakibay qalabka neefsiinta iyo in la saaro kursiga waxay sidoo kale soo martay qalliino badan oo ay ku jiraan indhaha iyo ka saaridda qanjirada candhuufta oo ay sababsatay daawooyin la siiyay kadibna ilkaheeda ay mid u daateen hase yeeshee runtu waxay ahayd in JB ama gabadhu ay socon kartay uma baahnayn tuubo quudin mana lahayn kasar madaxeeda waxaa ka daatay timihii balse waa sida ay ula muuqatay dhaqaatiirta waxaase hooyada ay sameyn jirtay inay ka xirto timaha gabadheeda sidoo kalena daawooyin ay siin jirtay baaritaanada caafimaad ee gabadha waxay muujinayeen inta badan natiijooyin aan dhammaystirnayn oo iska hor imaanayo oo ku saabsan baaritaanada gabadha laakiin hooyadeed waxay bilowday inay joojiso la kulanka dhaqaatiirta inaysan jawaabo sax ka bixin xaaladaha caafimaad ee gabadheeda iyadoo ka cabsi qabta in la ogaado xaaladeeda Didi waa hooyada gabadha waxay horey u ahayd kalkaaliso mar soo shaqeysay waxayna gabadheeda siinaysay daawooyinka qaar ay ku soo saarayso calaamadaha kansarka sida timaha daadashada tabardarida iyo astaan kasta oo ay isleedahay waad ku khaldi kartaa dhaqaatiirta Didi sidoo kale waxay ahayd mid dareen muujisa waxayna u muuqatay mid u heelan caafimaadka gabadheeda markii ay JB ay isku daydo inay hadasho ama ay la wadaagto fariin dadka hooyadeed waxay ku amreysay inaysan iska warbixin karin lana hadli karin dhaqaatiirta iyo bahda caafimaadka hadaba sanadkii 2008 Dida iyo gabadheeda waxa ay ka guureen gurigii ay deganayeen waxayna degtay guri cusub oo ku yaal magaalada Springfield ee gobolka Missouri waxaana dhisay hay'ad samafal ah waxaana loogu dhisay qaab uu ugu noolaan karo qof saaran kursiga naafada
dhammaan albaabada gurigana waa kuwo loo sameeyey sagxadda gaari curyaanka u fududeynaya gelida guriga. hooyadan oo hamigeedu waa dhaqaale u rumoobay waxaa si aan kala joogsi lahayn ula soo xiriirayay hay'adaha samafalayaasha iyo shakhsiyaad caawinaya. markii ay gabadhu da'deedu ahayd 14 jir waxaa magaalada ay deganayeen kula kulmay dhakhtar ku takhasusay neerfaha. waxa uu arkay khaladaad iyo iskhilaaf ka jira xanuunada gabadha iyo dawooyinka ay qaadato, waxaana uu u gudbiyay xogteeda waaxda caafimaadka ee la socotay dhaqdhaqaaqa caafimaadka gabadhan. tani waxay dhalisay in laba qof oo ka mid ah shaqaalaha ay soo booqdaan gurigooda, laakiin Didi waxay ku qancisay inaysan jirin wax khalad ah. markii ay gabadhu sii weynaatay, Didi waa hooyadeeda waxa ay bilowday inay ka been sheegto da'da gabadha, iyadoo aad ugu fogaatay inay bedesho taariikhaha ku jira shahaadada gabadheeda sida dhalashada si ay gabadheeda ugu ekaato mid ka sii yar da'deeda. laakiin JBSI ayaa markan bilowday inay dareento dhibta hooyadeed ay ku hayso, waxaana ay la doodi jirtay mararka qaar hooyadeed, inkastoo ay iyana laftirkeedu ay aaminsanayd in xanuunadan ay yihiin kuwa haya. sanadkii 2011 JBSI waxay isku dayday in ay ka fogaato hooyadeed iyadoo qorshaysay inay la cararto nin ay iska barteen internetka, laakiin Didi si dhaqso leh ayay ku ogaatay qorshaha gabadheeda, waxayna ku qancisay ninkii in JBSI ay tahay qof aan qaangaarin, inkastoo ay dhab ahaantii jirtay 19 sano waqtigaas. sida ay gabadhu sheegtay, hooyadeed waxa ay jibisay kombiyuutarkadii waxayna dib ugu celisay kursigii oo muddo hore ugu dambeysay. waxay u aragtay in gabadheedu ay ka sii baxayso gacanteeda, waxaana ay bilowday cadaadis ay saarto gabadha. JBSI ayaa sidoo kale sheegtay in hooyadeed ay mararka qaar garaaci jirtay oo ay u diidi jirtay cuntada. JBSI ayaa aakhirkii ku guuleysatay inay dib ugu noqoto internetka, waxayna ku biirtay website shukaansi, halkaas oo ay ku baratay Nicholas Gottchan. waxay u sheegtay wax walba oo ay hooyadeed kala kulantay iyo ficilada ay kula dhaqantay, waxayna ugu dambeyn ka codsatay in uu dilo hooyadeed si ay u wada joogaan oo ay waqti iskula qaataan. Nicholas bishii June 2015 wuxuu yimid gurigooda, wuxuuna mindi ku dilay JBSI hooyadeed, halka gabadheedu ay taagan tahay meel aan ka fogeyn halka uu falka ka dhacayo, iyadoo dhagaha iyo indhaha qabsatay. JBSI waxay raacday Nicholas Gottchan, waxay u raacday gurigiisii oo ku yaal Wisconsin, halkaas oo ay boolisku ka qabteen mar dambe. sidee boolisku ku ogaadeen dilka Didi? JBSI ayaa 2 jeer soo dhigtay Facebook ay wadaagi jireen hooyadeed. qoraalada ayaa ka turjumayay dilka hooyadeed. qoraal ay si kooban u soo dhigtay ayaa ahaa taasi waa ay dhimatay. booliska ayaa mar dambe helay fariin kaga timid dadkii ku xirnaa Facebookaas, waxaana boolisku ay sameeyeen baaritaan ku saabsan kiiska dilka Didi. kadib dad badan ayaa yaqaanay JBSI, waxaana la yaabeen sababta ay ugu dhiiratay inay disho hooyadeed. maadaama ay socon karto, waxay si fudud u soo bandhigi lahayd ayay yiraahdeen beenta hooyadeed, iyadoo bannaanka soo dhigi karta sirta hooyadeed. balse gabadha ayaa sheegtay inay ka cabsi qabtay inay weydo qof rumaysta waxa ay sheegayso. waxa ay tiri, wax kasta waan sheegi karay, laakiin ma haysan qof aan ku kalsoonaado. xaqiiqadu waxay ahayd in gabadhu ay nolosheeda oo dhan ku qaadatay xakamaynta iyo dabagalka hooyadeed. looma ogolaan inay tagto iskuulka ama waxbarashada, inkastoo gabadha caafimaadkeeda iyo garaadkeeda uu ahaa mid wanaagsan oo caadi ah, lagana been sheegay xanuunka maskaxda iyo neerfaha. maadaama diiwaanada caafimaadka ee JBSI ay cadeeyeen xadgudubyo loogu geystay gabadhan, qareenkeeda waxa uu ka dhaadhiciyay inay gasho heshiis qarasho ah oo ku saabsan eedeymaha dilka hooyadeed. sanadkii 2016 gabadhu waxa ay qiratay dambiga dilka heerka labaad oo ah abaabulka qorshaha dilka, waxaana lagu xukumay 10 sano oo xabsi ah, inkastoo ay xaq u yeelan doonto si deyn sharafeed kahor inta uusan dhammaan xukunkeeda 2024. dhanka kale, Gottchan ayaa lagu helay dambiga dilka heerka koowaad sanadkii 2018 oo loo helay cadaymo dhammaystiran, waxaana lagu xukumay xabsi daa'im. maanta JBSI waa caafimaad qabtaa, waxay kaloo sheegtay in ay xabsiga ku haysato xorriyad ka badan tan ay la wadaagtay hooyadeed Didi. si kastaba haatee,
mar la weydiiyey ma ku faraxsan tahay mise waa ka murugaysan tahay dilkii hooyada waxay ku jawaabtay waxaan ku faraxsanahay inaan ka baxay xaaladaas laakiin kuma faraxsani inay dhimatay hooyaday guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabanayaa sheekadaasi dabcan sheekooyinkan iyo kuwa kale xiiso badan oo dhacdooyin ah janalkan ayaad kaga bogi doontaan intaan dib u wada kulmi doono nabadgelyo